guda jirnaa xagga Photoshopka ama barashada Photoshopka. Marka waxaan rabaa casharkan yar inaan ku sharxo haddii aad u baahan tahay sawiro aad editing ku samayso meelaha ka doonan lahayd. Waxaan ognahay Photoshop badanaa waxaa u baahan doontaa sawiro haddii aad lahayd mid background aad ku darsanaysid ama haddii aad lahayd mid mock-ups aad ku samayn lahayd. Marka waxaa muhiim ah inaad taqaan meel aad ka doonan kartid ama aad taqaan meel aad ka doonaysid sawirada aad ku edit karayn doontid maxaa la si project badanaa waxaa jiro dad sawirada ka soo degsada xagga Google-ka waxaan ognahay sawirada badankoodii ma ahan mid professional ah. Mid professional waxaa ula jeedaa ma ahan mid qofka baahidiisa dabooli karto. Sawirada Google-ka waxaa jiro sawiro qaar in xagga tayada uu aad u hooseeyo, sidoo kale waxaa jira sawirada qaar tayada ay wanaagsan tahay laakiin ay ka muuqato logooyin hadhow markii boor samaysid ama maxaa loo yaqaan design kale aad samaysidba aadan ka saari karin sababta loogada waxaa saaray qofka sawirka soo dhigay Google-ka. Marka waxaa muhiim ah in sawirada aysan ahayn mid looga saaran ama mid tayadooda hooseyso. Marka waxaa muhiim ah inaad taqaan meel aad ka doonid sawirooyin tayo leh. Marka waxaan rabaa halkan inaan kugu tilmaamo 3 website kaasoo ka caawin kara inaad heshid sawiro badan oo tayo leh. Okay, horta marka koowaad waxaad samaysaa Chrome-kaaga ama waxa isticmaalaysa adiga ugu xirantaa waqti soo furo. Marka soo furto kadib waxaa garaaci doontaa 3 waxa jira website aad ka helayso sawirooyin fara badan. Website kood waxaa lagu magacaabaa Pixelist lagu magacaabo. Marka Chrome-kaaga soo kicisid waxaad ku qoraysaa midka kood waxaa lagu magacaabaa pixelist.com inta qortid enter daraadid waxaad u jeedaa website-kan ay ku keeni doonaa. Website-kan waxaad ka helaysaa ayu sawir u baahan tahay inaad isticmaashid. Sidoo kale website-kan waxaa ka heli doontaa videos. Marka video anaga hadda uma baahan laakiin waxaan u baahan kaliya sawir inaan helno. Marka haddaan rabno sawirka inaan helno waxaa muhiim ah inaad taqaan sawirkaaga waqtigaas aad u baahan tahay. Waxaa loo jeedaa design-ka xilliga aad samaynaysid ay ku xiran tahay. Sawirooyin background haddaa u baahan tahay background image ayaa iska leedahay. Marka ku dhufsid background image oo ujeedaa image wuxuu ku soo saari doonaa xagga background-iga haddaa u baahan tahay maxaa loo yaqaanaa si aan iska dhahno mock-up haddaa u baahan tahay waa ka heleysaa halkan oo ujeedaa ayu mock-ups u baahan tahay waa ka heleysaa halkan. Mock-up wall wax lagu dhejin haddaa u baahan tahay waa kana hadhoodii u baahan tahay waxaa leedahay free download markaa dhahdo ujeedaa caadi kugu tagi doona caadi u tagaya waa ujeedaa waa ka bixinaysan. Marka shay walba u baahan tahay halkan ku qoraysaa. Website kale waxaa lagu magacaabaa asna Pixabay kana website kale waxaa lagu magacaabaa Pixabay. sidoo kale website-kan asna waxaa ka heleysaa sawirooyin qurux badan oo ku anfici doona. Website kale waxaa lagu magacaabaa Freepik website-kan Freepik oo kan asna waxaa ka heleysaa ayu nooc sawir oo diyaarsan. Laakiin website-kani wuxuu kaga duwan yahay website-ka kale. Website-kan xitaa wuxuu kuu soo gelinayaa inaad heshid template diyaarsan oo PSD ah ama Photoshop ah. Waxaan u jeedaa haddii design aad u baahan tahay waqti badan aadan haynin inaad design ka samaysid halkan ayaad ka helaysaa design diyaarsan. Kaliya magacyada iyo qoraalada kaliya aad ka bedeli doontaa marka aad aadid Photoshop-ka. Design diyaarsan waxaa loo jeedaa design oo PSD ah ama Photoshop ah. Markaad soo degsisid Photoshop-ka design-adani halkan ku jiraan waxaa suurtagal ah in design-ada meeshan yaalo ay ka anfacaan ama waqtiga ay ku dhaqaaleeyaan. taas waxaan u jeedaa haddii design yar aan meeshan ku qoro tusaale design haddaan ku qoro interface waxaan leeyahay banner iska qori doonaa banner markaan qoro hadda bannerka iga anfacmana bannerka isoo jiito oo halkan iga soo jiito aan waxaan samayn doonaa degsan doonaa tusaale waxaa isoo jiiday bannerka gabadhan saaran okay bannerkan waxaa leeyahay click
marka waxaan leeyahay download aan leeyahay bannerkan oo soo degsanaa free download aan kusii dhufan doonaa. waa ujeedaa wuu ii degayaa sawirkan markuu dego kadib wuxuu u degi doonaa qaab winner ah. markuu dego kadib waxaa laga yaabaa inaan ka helo xagga designkan maxaa lagu magacaabaa siiyo designkan oo ana haddaan soo degsanayno designkan aa ujeedid oo diyaarsan oo kaliya iga baahaya maxaa loo yaqaanaa siiye magacyadan iyo inaan ka bedel bas sawiradan aan u baahnayn. marka badanaan dadka madbacadaha ama maanta wax daawaco xagga binitarada waxay rabaan ahaadaan website-kan aad u isticmaalaan. marka adin waxaan ku dhihi lahaa website-kan ina isticmaashid isbar wax badan uu ka caawin doona waa ogahay wax badan uu ka caawin doona waqtiga kuu save garan doona sidoo kale xirfadaada xagga web design kale oo qaadi doonta idan waxaa helaysaa design oo ku dhiirigeliyo laga yaabo aad naftirka inaad isku daysid design inaad samaysid. marka website-kaani caadi maaha design kasta oo baahan tahay waad ku samayn kartaa website-kaani. marka waa kana website-keeni waa barnay saddexda website ugu muhiimsan. website-kooda wuxuu ahaa Pixabay, website labaad wuxuu ahaa Pixabay, website saddexaad waa Freebie. sidoo kale waxaa jiri karta haddaa raadis website badan oo sawirooyin free bixiya. marka muhiimadu waxay tahay in aad taqaana meel sawiro iyo design diyaarsan aad ka doonan kartid tomorrow haddaa u baahan tahay inaad isticmaal designadaas. marka cashirkaani intaan kusoo koobi doonaa intaan ku kulmi doonaa cashir kale sida inaad kaliya. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing